السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابته كوسو دوادا ويوتيوب شانلكي ولالكين كي فيلم سان فلوريس maanta waxaan wada fiidiyo ay isugu timaaday farxadii murugaba inta hore dhaw murugo caga dambana farxadda ka raadin doona fiidiyoga la arki doontaan wax kalena ma aha waa laba yar oo carruur guri laga tagay haddii aad beer jilicsan tahay fadlan fiidiyoga daawan intayna fiidiyoga gudagal haddii tahay markii kooda ay saarkano fadlan kusoo dhawo channelkeena kaali official subscribe noo saar haddii fiidiyoga ku caajabiyana like noo saar haddii aan intaa kaga soo gudbo waxaan rabaa inaan fiidiyoga hore idinka bilaabo maanta war badan iyo waxaas ma jirto kaliya fiidiyoga inoo bilaabi doonaa haddii aad iska beer jilicsatay waxaa xogaa iska samir yar halaabo maanta qofka beer jilicsan wallahi fiidiyoga okay fiidiyoga inoo bilaabaya horta intaana fiidiyoo gelin sida halkaa ku arkaysaan waxa weeyaan waa laba carruura oo guri lagaga tegay fadlan haddii aad tahay hooyo ama aabbo ama qof carruur lagaga tegay laba carruur guriga kaga tegeen iyo hal midnaba carruur yar oo guriga lagaga tagaa dhibaatada leedahay fiidiyoo ka hadlaya oo marka dhinac laga eego waa wacyi gelin waayo wixii doonaa ku iman kara war ma hayno marka carruurta yar waa iska magaranaysaa waxba ma garanaya yaryari halala saayiro sida arkaysaan ba labada yar waxay u eegeen laba yar oo mataana ah khaanada iyo baasha meesha taala bay rabaan inay ku ciyaaraan oo dusheeda wax ka soo qabsadaan banaagna waxa dhaca kaliyatii la hadda waxay sameynayaan khaanadii furfurayaan waxbay raadinayaan waxay tahay hore idinku sheegay haddii aad beer jilicsan tahay fiidiyogan haddaba maa ku hore kugu sheegay hadhow talimishii calooday baan isku dayay ana horena oo daawaday haddana iyadoo saa tahay mar walba ay dhibaysaa mid ka mid u badbaaday midnaba bahalkii looxa intaa leed arkaysaan ayaa kusoo dhacay waayo waxaan idin sheegay waa dhibaatooyinkay leedahay laba carruur oo guri laga taga ama halba ahaaday ilmo yar oo aan waxba kala garin guri laga tago sadarka samba mid looxa inta lag baa ku jiifa kii kale ee soo haray waxa uu isku dayayaa haddii aan qadaadooda qiyaaso way mise jiraan manaya qadaadooda waa 3 jiro miyaa odhan karaa mise 4 jiro 3 badhe laba miyaa 3 qadaadooda carruurta xilligan lama kala karto anu kule garan maayo haddii aad bal qiyaas adig laftooda qiyaas kartaa hoos soo qori kartaa mid ahaan baa galay arkasaanba kan kale wuxuu isku dayayaa inuu caawiyo ruwan eegana inuu caawin karo iyo inuu isagiisa dhibaato u sii geysto ilaa hadda mabuu fahminba xaaladda meesha ka socota iyo inuu dhibaataysay walaalkii oyoyo wuxuu isku dayayaa isagoo intaa la badan wuxuu isku dayay inuu balis badbaadiyo oo naftiisa ka dulqaado waxaan culus isagoo arkay waxa saaran kanina wuxuu iska wataa xadhigii iyo wixii baaladu isku xidhay samacadii wixii iska wadataa ilaa hadda waa xaaladda uma fahmin amana socdo kadaro dawir hadda ugu darantay looxii cusa ee saarnaa ayuu haddana wuxuu sameeyey dhakada kaga sii fadhiisanaya saad arkaysaanba dhakada kaga sii istaagay kii yaraana cunihii bay kaga beegantay
alxamdulilah waa uu ku dul koray, laakiin alxamdulilah waxa weeye xag kale u dhaafay uu ka degay, culayska ka yaraanay moogta markuu isna ka dego, haddii kale waa khayr khatar buu sii gelaya. waa uu eegayaa, waxa uu dareemin walaalkii khatar ku jiro. haddii aad aragtay waqtiyadaadii aad yarayd ama adigaba kugu dhacday idinkoo intaa laaleeg laba walaalaa ama laba walaalood kaloo si sheekee ka dhaad maqashay, haddii baad hore ula kulantay qiso noocan oo kale ah oo laba walaalo meel laga tegay dhibaatooyin noocaas oo kale saas oo kale adoo qiso noocan matashaa inuu hoosna ula wadaag. waayo qof noocan oo kale qiso noocan soo arkay ama caruur yaroo barkad ku dhacday ama waxay saas oo dhan soo arkay wuu dareemi karaa xanuunkii leedahay. ilaa hadda uu dul taagay uu fikirayaa maskaxda yar intuu leeyahay maskaxda yar ku jirtaa buu haddana ka shaqaysiinaya, waa loo baahan yahay. wuxuu isku dayaya, wuxuu leeyahay maxaa ninkan ka qaldan meesha ka hoos jira. xaaladiibuu marka hore wuxuu ku leeyahay darsaya badan. maasha allah, horta wuxuu isku dayaya inuu ka qaado, laakiin 5 jeer mise 6 jeer bi ka weyntay baasho ka culusaay. haddii bal adigu aad ilmaha yar ahaan lahayd maanta maxaad samayn lahayd? inta aanad fiidiyowga gaadhin aynan halkaa gaadhin ma noo sheegi kartaa maxaad samayn lahayd? bay kula tahay markay intaanad bal fiidiyow gaadhin taad qabsatid, maskaxdaada kasii fikir wixii aad adigu samayn lahayd markaad eegtid daadaadoo jira oo intaa leeg loox intaa leeg walaalkaayo kaa yar mataankaaga saaran yahay, cid kale oo ii dhaweyna jira qolkii ku xiran yahay, waxaad samayn lahayd bal maskaxdaada kasii shaqaysiin. واو مسكح كلو كهري كل waxa uu isku day in bahalkii ka riixo way u shaqaysaa filay u shaqaysaa ma sha Allah hayna ku soo dhacdan moodi mar labaad wallahi xanuun baa ilmihi aakhirkii wax kastuu isro rogay wuxuu sameeyay bahalkii uu riixay kiiraanisa ku badbaadi walaalkii كل لبضة ير مد عمرك وينادي حتى أو متانا ير ولو إسلام ما ير ونفتي سوبني كبدباد هدي مقال كورتين تاسوها هدي أدبر شيء سنة دون عروش كير حنو شيء تورودن حاجة دم كل واحد نقلا فرح المركز أرتيسي ولا بدبادي مقال كنا مانتي مقال يرسل كواب بايون شعلة استين تناركين يدلو ذاو وأنا شعلان له هدي بعد هالك سو قاعدين شعل كلا سبسكرايب يلا يكتاس عرض فيديو أو وحي فيديو مركي دقيقة دي كنا حتى بدنا حاجة وصلنا وساقط ama waqtigaas lahayd caloosh ku xanuuntay kugu horeysay kulli video waa daawatay daqiiqadahana soo qor xagga soo qor si inuu weena bas loo kala beer jiray haddii aad leedahay waxba ma dareemin baanu saasaan eegay wax alle waxaan arkay ma leh way dhici kartaa qalbi dhagax noqon kartaa Soomaa iyo lafteeda nala wadaagi kartaa haddana qalbi dhagax baan waxaan aniga waxba ima yeelay wax ka weyn ma soo arkay taalifteedina waa saa waxaan rajaynayaa insha Allah in wadii qof hooyo ama qof aabbo caruur leh حنو كورت أد بدريمي سو سكستو سو جيتشي بدريمي أبيه هو ولا بدريمي مركا عروتي يعني اللي يتجين سنة فيديو إن شاء الله كسر سو كوبية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.